بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحن سلام يا دتك ولا لها الصومالي ميلو بي جوا وحن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الله سبحانه وتعالى ما اسكال على الإسلام نقدي. ثانيا وحا مانتا فرحت إناء سيدا نهر أوتي المامني فملكي كبدي أفريت من جيرك أهد waalidkeeda la xiray asli iyo walaalkeed shamsudiin iyo wiilkay maadirada hayeen oo maaragtay muxuu ahaa sacdaha in maanta ay xurriyadoodii dib u helaan alxamdulilah allahuma laka alxamdu walaka shukr horay baan idinku sheegay waxaan idhi nidaam baa la marayaa yaan la degdegin dadka soomaaliyeed maaragtay hadallada aan wanaagsaneyn ka sheegaya waxa fiicna degdeg buu ahaa الحمد لله ما أنتوا وين الجوجان وإلهي سبحانه وتعالى الفدقسي دعوته ضلك أيال لدقي وحكلي أي هذا أي سوق يوم حتاي لا يرضى دي لكل مدونان هدي إلهي را ثلاثة ضرب كيد المدونان وحتاي حقوق لي كما كانت إن إيراد سدان بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله وح جوجنا جورجي أي قبل كوجريوتي الحمد لله خويا أصل وين رجوكتا الحمد لله لكن هذا الكذا مرة بين نسوق بينه الحمد لله ضدكي ولا لها إيه صوماليات إيه أسود عيي آدي بوحول هذا جزاكم الله خير الجزاء شمس الدين إيو سعد إيجانا وحير بهذا الدونان صوروا ذا المسوق بينه لكن سؤال يرقكم من بويديننا وحا هذا إلى جوجا أو ماشي رفضية قريان فضينا ورالكي روبلة عبد القادر روبلة oo akhyaarta gudoomiyaha xaafada ay maaragtay arintan ay ka dhacday ee fiska sadra Soomaalida oo aan oran karo dad Soomaaliyeed oo qiimo badan ayaa meeshaas degan Soomaalidana waxa fiican meel walba ay joogaan inay wada midoobaan waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa Abdul Qaadir ayaa midigta xiga bidixdeeda waxa fadhiya ehladii qaraabada oo aad iyo aad uga mahadnaqayo intii hawshan ay jirtay aad xilqaamid aad u muujiyay iyo wada shaqeyn anaga iyaga naga wada dhaxaysay waxa bidixda fadhiya waa Sheekh Maxamuud waxa kasi dhinaca kale sii jira walaalkay Xasan marka alxamdulillah farxadaasi maanta jirta oo ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayna meel walba ay joogaan ayaan waxaan ku hormarin lahaa walaalkay Sheekh Maxamuud inaan isaga maadaama familku yahay كلمة أو كوبان أو ماركتي إنه يسجل ماركتي وضدك ولا ليس لا غير صدق كدبنا وحنسين له إن شاء الله حسن وإهلك كدبنا وحنسين لنا بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن عبد القادر روبلة واه ماركتي أضياشة حافظة ماركتي نكأ ما فيسك سترة لا يراهدو كدبنا وحوجد بدونا لبدا ويل وإلهي سبحانه وتعالى ما تدب أسو هالحرية دولة oo maaragtay qaarkood iyaga kamida maaragtay ilmahan maaragtay dhalinyaradan dambiyo iyo jaafo aan wanaagsaneen ay maaragtay dad badan ay ku dhamaan oo la doonayo dadkaas imaqlaya ama familka ama guud ahaan inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ka baridaan hadalladii idin ka dhacay inaad cafis aad weydiisataan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Sheekh Maxamuud baa markaan kelimada ku wareejinaya barakallahu fiik Sheekh Maxamuud نحمده ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله أولا وآخرا إلهي وآخرا يدب مهضولة هو الذي تتم نعمته الصالحين وإله النعمة يسوء أودم يسترنتو اتكستو إساق كعبصة أشكر جزيل الشكر لشيخنا الفاضل شيخ حسين أحنا ذي أدوم هذا علنا حسين يددي أوغا مسلمين تسوماليات مركز توعي جوغا انتي كغيب كشي ووحد عكرا انقف بلادة ندور دينتو لكن هذا أنت قف مركود أنتو حيث ويدين له قفاسي سيدا ود أنت هذون كورهيني أما هذون أوجين أنت ورقادو أتراساس ودمتي سيدا ساليري وركا كتركتين تانا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكان لي نبي علي حنبي شيء عليه الصلاة والسلام وينو قدي إن قفكم مسلم كي وكديتون هذا وحليلي بالي لذلك النبي يقولها إن الله كره لكم ثلاث قيل وقال وحليلي بالليل حاد يدو بدن برشاد الصوماليات وحليلي بالليل هذا ضدك وحي نقدين وحمد دورته أما قالين كوديغلي أما أور كوديغلي أما أف كوديغلي نبا وحبو مغليا مو أوغا وحانو أوغين بو
wuxuu bulshada kala dhicinayaa wixii waxaan jirinba oo aan ahaynba haddii qofka qadar ilaahay ku dhacay siduu isagu u dhimayo dee qof kastaa ilaahay unbaa og waana wax qoran qofkuna uu marayo laakiin inaad bulshadan been ka sheegto reerdhan aad been ka sheegto daddan aad been ka sheegto oo waxa laga wanaagsan yahay weliba dadayga youtube-ka had iyo jeer ama social media aada u isticmaala lidaalika baa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey qoluu nabigu sii maray calayhi salaatu wasalaam god dhiiga ku dhex jira lidaalika bad ah dhagax lala dhacayo lidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam qudadkii uu meesha kusii maray waxaa ka mid ah qaar maqasyo lagu jarjarayo daamunkooda lidaalika baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuuhi waa kuwii beenta sheegi jiray beentaasina ay jihooyinkao dhan gaari jirtay hadday waxa dhacaan qofka muslimka waxaa looga baahanyay atatabuc walistiqraa inuu wixii dabagalo ogaado sidaasaa ilaahay jala wacala wuxuu leeyay wain jaa-akum fasiqun binaba-in fatabayanu warka gaalku xagguu jooga qofka muslimka ayaan tukan ama aan soomin ayaa warkiisii la diiday xagguu jooga qof aan tukanayn aan salaadayn qof aan tukanayn waa qof laysoo haysta islaamnimadiisiiba oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam bayna arajuli wa bayna alkufri tarku salaa qofka iyo gaalnimo waxa udhexaysa baa nabigu yihi calayhi annisaa shaqaa'iqu rijaal dumarkuna markaa nabigu soo qaata ragga dumarkuna meesha way ku jiraan qof kastoo salaada ka tegay waxa uu ka dhigayay qof hadduu camdi uga tago waaba gaal haddii kalena waa 3 cishaa loo yeedhi waxaa loodhan tuko haddii la tukan waayo maxad baa loo dili mise waxaa loo dili lidaalika waa waxa aad iyo aad wanaagsan in qofka muslimkii ereyga kasoo baxaya uu ka fiirsado bulshadana aanu been ka sheegin dadkii way soo caafimaad qabaan way wanaagsan yihiin wax dhibaato oo ku dhacayna ma jiro marka wax dembi dhaco ee dadka o dhan in la waraysto ijraa'aad qaanuuniya in la mariyo wax aada iyo aada wanaagsan alxamdulillah ilahay baan uga mahadinaynaa awalan wa aakhiran dadkaas maanta gartay inuu ilaahay jala wacala usoo celiyo ilaahay yani xorriyadoodii ibnu xasan cabdi samatar iyo asli axmed ciyaalkoodii alxamdulillah way fiican yihiin iminkan insha allahu taala waxaan idii dardaarma bulshada soomaaliyeed haddaydan ummadda waxba la qabanaynin dhibta dadka ka ilaashada oo wax aada iyo aada wanaagsan qofka wax qabanayana ha dhibaataynina garab gala oo garab istaaga taasi waa tabu qofku wax ku noqonayo isaguna uu ku badbaadayo bulshada inteeda ay ku badbaadayso oo nabigu wuxuu leeyahy alayhi salaam man kaana yu'minu billahi walyawmi al falyaqul khayran aw liyasmut qofka maalinta dambe iyo ilaahay rumaysan khayra ku hadla ama ha iska aamuso aadan waxaan kusoo dhaweyn lahaa walaalkii xasan muuse wacays insha allah جزاكم الله خير الجزاء شيخ حسين ولكن شيخنا قارئة الله سبحانه وتعالى كامل مريو هذا الذي وناكسنا انتي هوشاسي اي بلا بنتي الا عاون قريب فدين شيخ حسين الله سبحانه وتعالى وقت جيسا امري جيسا علم جيسا يقويس جيسا الله سبحانه وتعالى هو بركين شقضوا قبنايو بالحقيقة والشقة الدولة الإسلامية أي أحيانا قبض أما الدولة الصومالية مركا الله سبحانه وتعالى مساك حسنات أو ضرب هذا بدن ورن ما يودل هذا الشيخ بعد مي لكن أنا صدق شيء ما في الجريلة لأن كدباتوي بسوق قاعد جيري وان وضع والد كان بعد انت ولا الكيم بعد انت أبتي بعد انت ولا لا انت لكن دجال بدن بعلا نقص وقاد أنا سياسة هان ورا نقص وقاعد وحسبيه أو إنه وضع كتر سما دوين سيدنا صور ويرره ميديا وضع كنا ونصور ويرره لكن متبنا فيلين أنا وقويس كي إن تصوماليات أو مسلمين وديك يجي له إنه ويرره نقص وقاعدان أنا ودي بنا تاسر تمنا فيلين لكن وحن أنت كل لون الحمد لله مجتمع بدن الصوماليات أو نيد النوديساي يا أنا أو كل صونين in baaritaankaas socda uu si xor iyo xalaal u socdo aan dibna u midoobi doono alxamdulilah caawana way dhacday ilaah subxaanahu watacaala ayaan u mahadnaqaynaa iyo dhammaan inta dad kasta oo gacan ka geystay oo ugu horeeya sheekh xuseen oo xaqiiqatan aanaan weligay hilmaamaynin abaalkuu nagu leeyahay asalaamu allaahi calaykum بسم الله الرحمن الرحيم انتي هذا هاي انتي مالتي ذكر iyo ahaad aqoon ba ragan ba soo jeediyay
laakiin maadaama aan anigu kamid ahay dadkii dariska ahay deganaa halkan cabdiqaadir xaaji cabdi rooble waxaan maanta rabnaa inaan ka sheekeyno inay farxadi noo bilaabatay oo dhibka waxaa ka dambeeya farxad maaragtay in la soo daayay maamadii iyo labadeedii maaragtay wiilkeedii iyo inankii maaragtay ahaa ilmaadeerka ahaayeen reerku marka waxaa idiin sheegaynaa dadka wanaagga jecel maaragtay reerkan kheerkooda iyo samafalkooda in lagu guulaystay intii ugu badneed dacwaddii ay dhammaatay wixii faahfaahinaya information wixii u baahan waxay kala xiriiri karaan xuseen faarax insha allah oo maaragtay beejkan iyo hawshan ku guda jira marka waxaan hadda wax yar warays la yeelanaynaa dhalinyaradii la soo daayay wiilkii gabadha la dhashay allahu naxariista gabadhii iyo saacad asagan halkan jooga waxaana warays la yeelanayaa sheekh xuseen بارك الله فيكم أخيارتا علماء الله يدين بركيه ضد الصوماليين نوعا ضد ونكسن ملو بيجان الله يدين بركيه وحروا إن شاء الله دولا يا رمضان صورنا سوسي دين دونين إن شاء الله وحا يقوه الرئي شمس الدين أو ولالكي ماركتي الله ونحرستا قبدي أفريج منجيركا كوينا سوى تدبيت منجيرنا دريم كرتان حبسي قلي شمس الدين maxaad dareemaysay markii aad adigu maaragtay meeshaas lagu geeyey iyo adigoo maaragtay uu dhib idinkugu dhacay oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala walaasha maaragtay ay geeriyootay maxaad dareemaysaa codkaa kor u qaad sawir laga qaadi maye wallahi marka ugu horeysa horta ilaahay baa mahadlo ilaahay baa xaqa u arkayaa cid kaloo dee cid kaloo hadda looga baarana ma jirto mar hadduu ilaahay xaqa arkaayo marka ugu horeysa wallahi waa iska dhib badan tahay adoo geeri ku timid misana haddana xabsi kugu xigo haddana alxamdulilah ma leenahay maadaama maanta ilaahay bana soo nabad celiyey inkastoo dee qof geeri u timid haddana xabsi haddana gala isla markiiba ay iska dhib badan tahay haddana wax kaste haddana khayr unbaa ku xiga marka alxamdulilah ما شاء الله بارك الله فيك سعد oo isagana ما شاء الله kamid ahaa maaragtay qofkii maaragtay isagana la xiray oo isagana ma sha Allah kamid ahaa oo ehelkii maaragtay qaraabada kamid ahaa sababta nidaamku markuu jiro waxa jirtay in maaragtay muxuu ahaa la baaro sida maaragtay hore aan u sheegnay culimada iyo ehelkuna ay sheegeen sacad maxaad dareemaysaa markaad fiirisid marka alxamdulillah maanta xorriyada lagu soo celiyay maxaad dareemaysaa soo dhawo sacad insha Allah codka maxaad dareemaysaa si dareemaysaa maanta xorriyadaada aad heshay insha Allah wallahi aad iyo baan faraxsanahay alxamdulillah ما شاء الله ما شاء الله aad aad buu faraxsan yahay marka waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah idin barakeeyo ma sha Allah dadkii intii ka qayb qaadatay ducaa meel walba ay joogaan Allah barakeeyo dadka maaragtay ma sha Allah xaafadan naka ama fiska sadra rag iyo dumarba ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo iyo intii Soomaaliyeed maaragtay arrinkan xanuunka la maaragtay oo maaragtay maxaa kala maaragtay dareemay ilaahay subhanahu Allah barakeeyo waxa aad iyo aad cajiib u ah markii la soo sii daayay ayaa lawyer-ka ka tirsan oo Shamsuddin wiilka ugu yar lawyer-ka ayaa wuxuu yiri meesha waxa ka furneed buu yiri laba maxkamadood buu yiri maxkamadii aan ogeyn iyo maxkamad maaragtay media ah oo iyagu maaragtay wixii meesha ka socnaa wax kale si kale u sheegay marka labadii maxkamadood ilaahay waa nagu guuleysay uu yiri sababtoo wuxuu ahaa nin muslim ah marka intaas baan ku soo gabagabeynayna إلهي سبحانه وتعالى الله يدين بركة ميل وجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته